إذا الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها. sheekh usuuli ilaah ku barakeeyo maasha allah waa hooyo soomaaliyeed oo joogta muqdisho. بارك الله فيك أختي، جزاك الله خير. sheekh waxaa rabay inaan ku weydiiyo laba su-aal. مهم. mid kood waxaa waaye sheekho waxaa jirto xaasa ahay مهم. xaajiga marka xoogaa waxaa waaye dadka aan lacag badan aana bixinaynin marka kasta biiloo kaleeto واقف. basoo bixinaa marka sheekho biilkaas haddii intaa wax aan ka dhex bixiyo aan hagbad ku galo familiga iyo guriga waxay u baahayn aan dib ugu soo celiyo sheekh dambi miya نعم أختي، أن وح بقامستيد ومال دقيتيد هذا أسكالي midda حقيقة labaad wax fiican waay oo wax fiican aad samaynaysaa gabadha oo xaafidada ah oo ilaalinaysa guriga oo maalka ragga kabayso wax fiican weeye laakiin akhlaaqda waxaad moodaa diintana waa ku banaynaysaa wixii lagu siiyey waxaa meel ka dhigtay iskale asaga wuxuu ugu talagalay in marsuuf haddii allahuma haddii aad dadka aad cunuqabateen ku samaynin oo ilmihii aad cuna la-aan dhigin oo odayga aad cuna la-aan dhigin oo markaas xaqoodii aad ku xadgudubtaa gaar wey laakiin wixii aad adiga kusoo haro waa leedahay ama wixii u baahan tahay ziyaadada waa ka qaadan kartaa xataa xadiiska Abu Sufyaan hindi tiri bakhiil waa ninkan wax ma bixiyo jaabkaaga wixii ka kaafi ka qaad uu yiri marka xadiiskaas aqsigiisa waxa laga fahmaa ina wixii ku soo haray marsuufka daale laakiin akhlaaq alhaan ma wanaagsan tamaya odagaaga biradu soo ogaaday islaantii lacag leh soo shaki ma ka dhalan karan halkaas oo sida gabadhan lacag marsuuf yaraa sii jirtay lacageen hadda samaysay halkay ka keentay dad kale ma siiyay dhibaatay leedahay akhlaaq laaga ma wanaagsan bal inaad isku kalsoonataan aad u sheegtid aad tira waxa isiisa wax ka baxsaday oo kula ogaado wax fiican ta insha Allah taasaan kula talinaya dhinaca kan halo halo السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أسولي وحرب اللي بس علينا كويديو. تنكوات. مدكوات وحرب الشيكو دلني يردان أو يرير أو توابرك الله قاضي أو هذا إثيوبيا لقيي أو دجال استحضر لقيي دجال كاسك خيب جلي أرنت دين تمحيك قبتها مد اللبادنا مدحدي أو عندك لهاد لينين والدين تبررنا dadka muslimiinta ahaayeen ilmahoodii la qaaday arintaasna diinta maxay ka qabtaa sheekh Saruur akhi mas'alada hore waxa ilmaha la qaaday waa arintaas cadeyn ay u baahan tahay bayaan ay u baahan tahay saan sheegay haddaan ka hadlayni shahaado zuurnimada waxa kamid ah war kasta loo iska sheegay in la iska qaato oo waxay u baahan tahay qofka inuu cadeyn u helo cadeyntana waxa la yiraahdaa albayinatu ala almuddaci wal yaminu ala man ankar cadeynta marka hadda dawladda xageeda saaran tahay dawladda laga rabo inay cadeyso la hadashiiso caruurtii leen wadan kale jiraan military waa wax la qorto dib ma laha laakiin inay cala aqal walwalkaas ay waalidiinta ka qaato waa mas'uuliyad saaran way haddii ka cabsan mas'uuliyad ka baqaan warka aan dhamay akhiisu ay ka baqaan wararka banaanka laga sheegay haddii ka aamusaan dadka shakiya galay marka waxaa wanaagsanna nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay innaha safiya markuu jidka la socday xaaskiisa habeenkii uu ictikaafka ku jiray laba nin arkeen ay carareen nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri calaa risukuma innaha safiya maxaa wuxuu ka baqay nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaam naag mugdiga la marayso hadhow dadka ku sheekaysan xalan talo naagtii qofka uu dumarku la taagna laakiin nabiga wuxuu yiri xaaskay waa ogaada asaa u wacay waa ka carareen oo saa u yeeray macnaha waxaan leenahay diintu waxay qabtaa hadduu shaki yimaado qofka mu'miniinta shaki in laga qaado shakigan waa iska sahlan yahay ayadoo loo siin karin ayadoo la dhihin waxaan dada ka dambeeyay dada ka yeelin in cadeen la raadiyo ay dawladda bari yeesho ay tiraaho dawladda la hadashay ay tiraaho nin kasta waalidkaaga waalidiinta la shirto ay tiraa wiilkaaga waa kana telefonkiisa la hadal waa lagu soo hadalsiinaa dawladda ilaan dadka aakhir ma jiraan adduunyo jooga meesha reemaha ka joogaan hadday aakhir jiraan ay dhacdeen inay sheegaan markaas wixii diiyay ay wixii maka dhaw wixii waalidka ilaan wax bini aadam nafo wax laga hadlayo marka taas waa ka السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وأوقرته ها شيخ لو سؤال أنا ربنا كويدي الدول اللي تنكوات هذا ما كان هوين waxaan dhageysanaa su'aal nin weydiiyay oo leeyahay ala xaraana yani ogeey marka waa fahmay mid qofka asagoon ogeyn oo san wax shaqo ku leeyahay oo dhigi karo okay waxaas dib ma lahan laakiin markii uu ogaado in xoolihii ay xaraan yihiin so
kuma wanaagsaneen inuu xoolihii iska celiyo wixii hore uu isticmaalmay inta uu ka haayo inuu xoolihii iska celiyo soo ma ahayn ها باب ورع وكاس لكن حلال يحلاشكم حرنا وان شكني حول مال كان يري نين كلا أركي أسنا ولا أو ده أن وح عين كما هذا يعني حولها أن قمر لجوسي يا ما وح ربا لجوسي وح كما هذا أنا وحن كهذا مال كسبيجا أيوكو حلال لوبا ونكو حران تونوا هذه لجوه هديه أن عدكو يتحلل يوربا جوكت هذه أن قال العقد هذا بحس عيرت وبحس الكيكة كنت حلال يكون شقيس مثلا حراني كو كنت labada wax waa kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin ninkan waxa uu gaalada iyo nin dawladdu waxay bixiyay adiga waxa wax ka qaban kartid ma aha laakiin أخي أنا وحن كهذا مالك كسبي قبشكم محرنا فيه هل wax yadan ka dhax galo ها anigoo nin la soo dhacay oo gurigiisa xabad looga dhacay oo isiya waxba ka ogeyn maalinta ogaaday in la soo dhacay waxa aniga liiga rabaa wixii inaan celiyo ها لكن قال waxaad ku iibsatay lagu soo celinaa laakiin Soomaa qaaliga waa ku celinaa waxa ka iibsatay lacagtaada lagu soo celinaa ma xaaraanta ma wixii xalaasheeda maaha waxa haday waan ka hadlo waxaan ku yiri maalka kasbigiisa aan ku yiri laakiin haday waxa ay yihiin waxa oo cayn xaaraantooda cayn sida qamri maal la soo dhacay oo qof kale daba taagantaho la haysadee tahay kaas waxa weey hadaa gadatidne waxa uu leeyahay dinka maxaa u kaalmays laakiin xoolaha waa lagu soo celiyaa oo aad wax ku gadatay laakiin beecaas ma ansaxay la leeyahay oo ma aha laakiin macnaheedu ma aha qaadasho akhi asalka qaacidada asalkeeda qaado daliileed u laab hadaa daliil rabtan daliilkeeda u laabo maalka qofka asalka qofka soo gool aabaha haduu qamra baar qamri ka shaqeyn jiray maalkiisa waa dhaxli kartaa hadaa warac u diidin adiga ma dhahaysa aabaha baar qamro lahaa maalkiisa dhaxal ma gala ma dhihi kartid maxaa yeelay dhaxalka waxa lagu qaataa ubuwa iyo bunuwa lagu qaataa cunug ahaan u dhaxlaysa meesha ku keenay maalka asaga lagu xisaabtama